annagu waan ku dhimanaynaa kama tegayno dhulkayaga caruurteedii caruuraha ku sii dhaleen dad agoomo 12 caruur haystaa jooga qaar xafaayad xidhan oo halkaas soo dhintay baa jooga qaar caruurahoodii jiida joogaan baa jooga xabashina manihin oromana manihin dad wadan kale ka soo galayna manihin waxaanu xaq u leenahay in laga duudsiyana ma ogolin baanu leenahay dawladda sharafta leh meeshalaalkiis waan ku dhalanay xundurtayadii baa taala madaxweyne haddaad wax ka qaban weeyo taageeraan ku gubaynaa waan ku dagaalamaynaa waanu ku dhimanaynaa hooyooyinkayga meesha jooga waanu ku dhimanaynaa meeshan annagu inaanu mudaharaadno oonu dhulka gubno oonu ololino oonu xaqayagii doonaanu doonnay suldaankii wuxuu nagu yidhi bal aniga isuga suldaan ibraahim sulub buu ahaa waanu sugnay suldaankii waxba lama soo odhan madaxweyne waan kula qaadanay si ay dalka horsocod buu baahay laakiin marka dawladda qaar kamid ay dadkii kala jeclaysanayso ninna maanta dhul siinayso nin dhul haystayna dhul ka qaadayso waa midaan yeelayn horaan u hadalay mar labaad baanu hadalnay mar saddexaad baanu hadlanaa kama tagayno waan ku dhimananaa liiska iyaga waxa qaatay waa maayir ku xigeenka dadka kama dhaxayso maayir ku xigeenka qaatay laba liis baa la naga qaaday liiskii hore waxaanu geynay degmada 26 Juun gudoomiyaha 26 Juun hana loo weydiiyo markaanu niri liiska iyagii maayir ku xigeenka iga qaatay buu kii horena maayir ku xigeenka qaaday oo gudbiyay oo ka saaray dhaantadiiba waa laga saaray maxay ku dhacday markaanu niri kana kamida day abi jiidu ku dhintay waa kan dawladdu waxba kama oga qaar waxa weeye marka waxa weeye waxaan leeyahay qaar ka mid ah hooyooyinka ku ganacsada suuqa idaacadda ee magaalada Hargeysa gaar ahaan waqooyiga deerka idaacadda ayaa cabasho xoogan ka muujiyay qorshe ay sheegeen in dawladdu kaga rarayso halkaasi fashici darro ah hooyooyinkan oo warbaahinta la hadlay ayaa cod dheer ku sheegay inay dawladda dhexe oo garab ka helaysa dawladda hoose ay doonayso inay si fashici darro ah kaga rarayso goobahooda oo ay in muddo ah deganaayeen isla markaana ay soo dejiyeen dadyo kale oo meesha aan deganayn dadweynahan ayaa intaas ku daray inay dhowr jeer oo hore cabashadooda u gudbiyeen dawladda hoose ee Hargeysa wasiirka howlaha guud iyo madaxda kale ay khusayso kuwaas oo ay wajigabax kala kulmeen waxayna si fariin isbarkan u direen madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo ay ugu baaqeen in cabashadooda hoos u eego inta aanay meeshaas ka dhicin waxyeelo laga baaqsan karo hadda waxaanu nahay dadkii waqooyiga idaacadda deyrkeeda waxaan nahay dad 28 sanadood deganaa oo caruurahay dhaleen caruura sii dhaleen waxa la yiri inta la noqoray oo liiskayagii la qoray ayaa ogaan loo soo reebay qolada gudidii soo reebtay gudiduna maaha gudida dhow waxa weeyaan gudidii uu madaxweynuhu u igmaday waxaanu leenahay waxa la nooga reebay ee inta liiskayaga loo qoray haddana loo soo reebay dad dan la haray maxay haday warqadayada iyo qoraaladayadii waxaan leenahay mudane madaxweyne adiga aad baan ku salaamanaa hadii aanad kula jirin wasiirka iyo maxay hayday maayirka iyo maayir ku xigeenka iyo gudida aad u soo igmatay inaad meesha maxay hayday aad u xil saartay baaqayga ka soo jawaab baan ku leenahay hadii aad ka soo jawaabi weydo waad kula socotaa baan qabnaa waxaan u leenahay annaga hadii aan wanaagiyo waxaan doonaynaa maxay hayday inaan dhulkayagii ku helo hadii aan ku heli weyno wixii laga helaad leedahay mudane madaxweyne ka soo jawaab baaqayaga na dhageyso horaan u hadalay mar labaad baanu hadalnay mar saddexaad baanu hadlanaa kama tagayno waan ku dhimananaa waxaan ku leenahay mudane madaxweyne adiga iyo wasiirada halka jooga ee u soo igmatay hawsha hadii aad ka soo jawaabi weydo oonad la ogeyn waad noo soo jawaabi doontaa waxaan la hadlanaa wasiirka amniga waxaan la hadlanaa maxay haday jananka ciidamada booliska waxaan la hadlanaa gudoomiyaha bada saabka nabadgelyada inaad idinku mas'uul ka noqonaysaan hadhow toole halka wixii ka dhaca hadii aad baaqayga ka soo jawaabi weydaan annagu cidna ma ataagano laakiin dad isku mid ah baan nahay wadaanu wada deganayn iyaguna way sii jeedaan anagu waan soo jeednaa dad baa cusub oo aan ahayn dadkii meesha lahaa ayaaba la keenay waanu ognahay wasiirka iyo maalinta wasiirkan u tagnaana albaabku soo xidhanaya wasiirka hawlaha guud wuxuu nagu yiri madaxweynaha hadaad u tagtaan iyo hadaad cid doonaysaan u tagaysaanba aniga hawlii taala maaha waxaan ku leenahay mudane madaxweyne dad waxaan anagu dawladnimada yaqaana dad xishoodka yaqaana dad dastuurka iyo dawladnimada yaqaanaanu nahay hadii laakiin ay socon weydo waxa laala waxaad ka hesha adiga leh hadii aad ka soo jawaabi weydo oonad la ogeyn maxay hayday wasiirka iyo gudida aad meesha u igmatay adaa ka soo jawaabi doono hadii aad la ogtahayna ka soo jawaabi maysid wixii aan laga helo halka annagu aan ku dhimanaynaa kama tagayno dhulkayaga
caruurteedii iyo caruuraha ay ku sii dhaleen dad agoomo 12 caruur haystaa jooga qaar xafaayad xidhan oo halkaas soo dhintay baa jooga qaar caruurahoodii jiida joogaan baa jooga waxaanu nahay dadkii deyrka idaacadda maxay ahaydee waqooyigiisa deganaa waxaanu nahay dad halkaa ku ganacsan jiray dad ku soo maxay in badan ku soo rafaaday oo ilaa iyo dhismihiisii iyo ilaa iyo isagii oo bannaan iyo ilaa imikada dadkii meesha loogu yimid baanu nahay dee xabashina ma nihin oromana ma nihin dad wadan kale ka soo galayna ma nihin waxaanu xaq u leenahay in laga duudsiyana ma ogolin baanu leenahay dawladda sharafta leh marka wax weeyaan annagii oo fadhino oo halka awlaadayada ku agoona iyo ku aabihii tabcaan yahay ama camal la yahay iyo ku dan yara annagoo isku korsano oo halka iska fadhina duulimaad baana lagu soo qaaday waxa naloo sheegay inay dawladdu dhulkayaga faragelin ku samaysay wasiirada iyo maxaa la yiraahdaa maayarka iyo qolada la yiri madaxweynaha u soo igmaday hawshan dad aan dadkii daan annaga ahayn bay meesha soo galiyeen marka waxaanu xaq u leenahay qof waliba halka uu degan yahay jaajuurka inta gashay isaga ku dhistay iyadoo banaana uu deganaa wixii uu xaq qofku u lahaay muwaadinimo ahaa inuu ka waayana maaha anakoon balaayo doonayn oo aan dawladda ku kacsanayn anakiyoon dad rabshada iyo inqilaab wada ahayn anakiyoon dad ka soo horjooda madaxdooda iyo dawladooda iyo dadkooda carqaladaynaya ahayn waxaanu doonaynaa in codkayaga la ixtiraamo waxaanu doonaynaa inaanu wixii aanu xaq u lahayn helo dayrku afar wajahadood buu leeyahay wajahadaha kaleba laguma muransana laakiin wajahadayadu waana lagu soo doontay waxaana lagu yiri meeshan dad baa la siinayaa dhuxulaysataa tihiin dhuxusha camalada laga shaqeeyay ka mid ahayd haddii ay dhuxul noqon weydo qofku de wixii uu meeshiisu u noqonayso ka dhigayaa waa ganacsigiisa marka waxaanu ka codsanaynaa dawladda sharafta leh inay codkayaga ixtiraamto oo si sharaf leh noogaga soo jawaabto waxa aanu ka cabanayno maanta halka waxay soo gaaray baaqaasoo ku iga yimid hooyooyinkan aan arkay hooyooyinkan waxay ka cabanayaan waa hooyooyin aad arkaysaan oo diirka aad arkaysaan intaasoo arday bay kaga soo saareen iskuul hooyo kasta waxa ku xidhan intaasoo faamili way madaxweynaha qaranka waxa leen mudane madaxweyne maanta dalku mucaarid ma baahna wadanku ictiraaf buu dhaqaaqay degmooyinkani mucaarid bay ahaayeen waanu kaa joojino waxaanu nidhi bal mucaaridnimada joojiya maanta dumarka aad arkaysa iyo waxaa rag aad arkaysa dhalinyarada arkaysa anigu shakhsi ahaan anigaa joojiyey in bartaa mudaharaad uu ka dhaco oo dalka maanta qallaase la geliyo dumarkaasi waana ii qabsoomeen sababta igu qabsoomeen oo hay dalku maanta inaanu buuq u baahnayn xaaladna aynu ku jirno madaxweyne waanu kula qaadanay si yahay dalka horsocod buu u baahay laakiinse marka dawladdaada qaar ka midi ay dadkii kala jeclaysanayso ninna maanta dhul siinayso nin dhul haystayna dhul ka qaadayso dee waa mid aanaa yeelayn annagu maanta waa diyaar waanu mar walba wax annaga ka shaqeynaa ictiraafkan aad arkaysa degmooyinkaygu waa kuwa ugu qiimaha badan leh maanta aad arkaysa Israa'iil ciday soo qaadanaysay waa degmooyinka la xilaata ka joog koodbuur gacmo dheere iyo magac libaax way hadaba annaga marna mucaaradnimadii naga joojisay oo kula qaadanaya in dumarkii iyo islaamiyiin loo weydaartana taa madaxweyne waa waxaan yeelin dawladdaadu uma soo istaagto dadka haddii aad leedahay madaxweyne baashu halkaa ka qasanto hala socdana dee buuriin baynu kori doonaa way sii waalan doontaa way noqon weyday mudane madaxweyne kama kaftana anagu hooyooyinkan waxaa soo ardayada arkaysay ka soo saareen iskuulo waa hooyada bartaa ku ganacsanaysa hooyooyinkan hadaladan ka hayo waxa kamid ah warbartani waa dhul dawladeed cashuur baanu ka bixinaa waliba laba cashuurood baan bixinaa haddii ay dawladdii u baahan tahay waa ka kacnaa laakiinse inuu shakhsiyaga la mida in ninna dhul looga qaado ninna dhul loogu sameeya dee horta waa ma dhacdo waxa isugu kaaya soo saaray waa hawl waa dhibaato halkaanu deganayn baa ka kacala nagu yiri dhulkaana loo taakiyay markii hore dawladda hoose iyo dawladda dhexaba way noqortay haddii ay noqoreen oo qoraalkayagii qaadeen annagu inay gudbiyeen baan doonay markii qoraaladii soo baxeen waxa liiskiina waa la qaaday liiska iyaga waxa qaatay waa maayir ku xigeenka dadka kama dhaxayso maayir ku xigeenka qaatay laba liis baa la naga qaaday liiskii hore waxaanu geynay degmada 26 Juun gudoomiyaha 26 Juun hana loo weydiiyo markaanu niri liiskayagii maayir ku xigeenka iga qaatay buu kii horena maayir ku xigeenka qaaday oo gudbiyay oo ka saaray dhaantadiiba waa laga saaray maxay ku dhacday markaanu niri idinka liiskiini maayir ku xigeenka weydiiyaan niri waxaanu tagnay hawlaha guud wasiirka hawlaha guud ee kaniga adag laanu la kulannay waxaanu ku nidad muwaadinaanu nahay dadka halka degan baanu nahay waa la noqoray liiskayagii iga baxa buu nagu yiri waxaanu ku niri madaxweynaha haddaad u tagtaan anu waxba idin ma hayo maxay ku dhacdaan imaanaan dad muwaadina oo dadkii gidaarka deganaa ahayn ma garanayay dhaafo dawladda hoose weydiiyay buu yiri waanu soo noqonnay salaadiintayadii baanu u tagnay cuqaashi baa noo raacday
waxay noola tageen wasiirka hawlaha guud waxay yidhaahdeen wasiir dadkii dhulkan lahaa waa kan waarbaxa buu ku yidhi suldaankii muu qiimayn annagiina muu qiimayn suldaankii nala socdayna muu qiimayn annagu inaannu mudaharaadno oonu dhulka gubno oonu ololino oonu xaqayagii doonaanu doonnay suldaankii wuxuu nagu yidhi bal aniga isuga suldaan ibraahim sulub buu ahaa waanu sugnay suldaankii waxba lama soo odhan waxa weeyaan wasiirkii amniga ayuu la hadlay wasiirka amniguna hawlo adag buu ku maqan yahay waxaanu madaxweyne kuu sheegaynaa suldaanka hawlaha guud wasiirka hawlaha guudna laga soo gaadho wasiirka hawlaha guudna laga soo gaadho wasiirka hawlaha guud iyo maayir ku xigeenka ayaa dhulka yagii cunay marka dadkan aad buu cabanayaan in badan meesha way yaaleen marka dawladda meelo badan oo arkay waxaan ku arkay dadka in la raro oo loo kala eexdo marka taasina cadaalad ma aban lay anigu marka waxaan leeyahay madaxweynaha dadkan cabashooda haloo hoos loo eego hadaa la yidhaah madaxweynaha waxaan leeyahay jaal madaxweyne waxa weeye waad arkaysay dawladda Soomaaliya xasan sheekh shacabka soo wala dhaqmaayay waxa weeye heer xataa wuxuu marayaa waxa weeye qabuurihii uu gato waad ogeyd hadda wasiir Dubbe markuu ku imaanayay xaaladda Soomaaliya soo kaaga warramay ma garad shacabka marka waxa weeye waa inaad waxa weeye u naxdaa teeda kale waxaan aad ula hadlayaa maayarka magaalada hadda maayar ku xigeenka waxaan leeyahay maayarka isaga laga rabaa maaha inuu iska seexdo maaha isaga laga rabaa inuu yimaado teeda kale de intaasoo sano hadda islaan hadda igu horreyso hadlaysay waxay tiri anoo yar baan imi way ku weynaatay ilmay ku korinaysaa dad baa waxa weeye ilmahoodii meesha ku baaba'ay dagaaladii ay ku baabeen maanta midda ugu dhibka badan waxa weeye waa hooyooyinka xaqiiqda markii laga hadlo kanaa ka mid ah day aabihii jiidu ku dhintay waa kan dawladdu waxba kama oga qaar waxa weeye marka waxa weeye waxaan leeyahay dawladdu waxa weeye hoos u fiiriso maanta in la laag meeshii dumarkaygii aga guuraan ma la qolaso annaguna ma yeelayno ma garata haddaan dhalinyarada xaafadda lixil hadda ka junnahay mudane madaxweyne hadalka horta kuu badin maynee annagoo cadaalad baanu doonina dumarkayagaasna ina cawdaan ma doonayno xaqooda loo dhiciyaan doonina meeshaan halkiis waanu ku dhalannay xundhurtayadii baa taalla madaxweyne haddaad wax ka qaban weydo taageeraan ku gubaynaa waanu ku dagaalamaynaa yaa waanu ku dhimanaynaa hooyooyinkayga meesha jooga waanu ku dhimanaynaa meeshan haddaad wax ka qaban weydid waanu ku dhimanaynaa maayirkan sheegaya cabdikariin haddaad meeshaa iman weydo wax ka qaban weydid iyo khabaryare adaa ku jira maayirkan doorane dadkii ku soo saaray wey yaa codkaygaad meesha ku fadhidaa haddaad maanta wax u qaban weyda alade yaa wax walbaaba ku dhacayaan maanta haddaad taageeraan ku gubaynaa meesha haddii laynugu yimaado maxaa ku dhimanaaba madaxweyne annagu waxaanu nahay qaybta waqooyiga guddi gaaraanu leenahay madaxweyne wasiiradii aad u igmatay dhulka way naga reebeen annaga liiska yagiina way reebeen waxa weeye madaxweyne madax meel ka sarreeyo la taabtaa ma jirto arrinkaa wixii hore oo dhan waa la yidhi anigu waxaan odhanayaa madaxweyne anaga guddidaas nima matisho